kanaan hadli karin wuxuu rajaynayaa inuu kitaabka Allah u akhriyo, kan indhaha la'aana wuxuu rajaynayaa inuu arko kitaabka Allah, kan dhagaha la'aana wuxuu rajaynayaa inuu maqlo hadalka Allah. Akhriya kitaabka Allah waxaa ku jira farxad aan dhammaad lahayn. dulmiga ugu weyn ee bulshada dhexdeeda waa raadinta wiilkooda aan wanaagsanayn haweeney saalihad ah. kuwa wanaagsan waxa u sugnaaday kuwa wanaagsan, kuwa xunna waxa u sugnaaday kuwa xun. saddex shay marnaba ma soo laabtaan: hadalka marka uu ka baxo afkaada, waqtiga marka uu ka tago, iyo kalsoonida marka la dayaco. samafalka waalidku waa qiso iyo taariikh aad qorayso, ayna ka warin doonaan ubadkaaga. isku day inaad si wanaagsan u wariso si loo wariyo si wacan. ula dhaqan waalidkaada si wanaagsan. waxaad jiri doonta xilli aad tahay waalid una baahan tahay samafal. jacaylku waxba ma ahan haddaadan ficil la soconin. aaminaaduna waxba ma ahan haddaadan daliil lahayn. raaligelintuna waxba ma ahan haddii aan isbeddel jirin. dadku inta badan waxay hilmaamaan inay ku mahadceliyaan marka wanaag u samayso, laakiin marnaba ma hilmaamaan inay ku eedeeyaan haddii aad hal qalad ka samayso. أي قلب ضمه الصدق بشوقي، أي هم ينجلي عند شروق، أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن يثرينا بها